saaxiibayaal faahfaahin dheeraad ah laga helayaa duqeymo caawa ka dhacay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe oo ahaa fadhiisinka ugu weyn ee ururka Al-Shabaab. duqeyntii caawa ka dhacay degmada Jilib oo la sheegay duqeymo dhanka cirka lagu garaacay dhowr xarumood ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa hadda waxaa ka soo baxay warar kala duwan inkastoo dowladda Soomaaliya aysan weli si rasmi ah faahfaahinaysa kaga bixin duqeynta iyo goobaha lagu bartilmaameedsaday. warka la helay wuxuu tilmaamayaa in duqeyntu ay mid qorsheysneed oo lala beegsaday meel ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo degmada Jilib ah halkaas oo halkay ku sugan yihiin madaxda horjoogayaasha ururka Al-Shabaab markaana laga soo abaabulo dagaalada ay ka wadaan qaybo badan oo ka mid ah gudaha Soomaaliya gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. duqeymaha ayaa la tilmaamay in caawa fiidkii degmada Jilib dusheeda lagu arkayo duqeymo ee halkaas lagu garaacayo dhowr xarumood oo ku taala. warka qaarkiis wuxuu tilmaamayaa ilaa 5 goobood oo ku sugnaayeen xubno Al-Shabaab ah in duqeynta lagu bartilmaameedsaday dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya guud ahaan ciidamada qalabka sida ayaana weli tafaasiil iyo xog faahfaahsan ka bixin khasaaraha rasmiga ka dhashay iyo bartilmaameedka ciiduha oo saacadaha soo socda la filayo dowladdu inay faahfaahin ka bixiso khasaaraha ka dhashay. dowladda Soomaaliya hadda waxay dagaal xoog leh kula jirtaa ururka Al-Shabaab waxaana lagu bartilmaameedsanaya kooxda Al-Shabaab meel ay ku sugnaayeen oo ahayd fadhiisimo ama warka inay tahay meel amni ah oo muddooyinkii la soo dhaafay ama sanado badan ay ku sugnaayeen sida degmada Jilib oo hadda duqeymo ka dhacayaan dhawaana qaalbuur ayaa lagu bartilmaameedsaday halkaas looga dilay dhowr xubnood oo sarsare oo ka mid ah ururka Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya hadda waxay wadaa howlgalo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab taasoo isku jirtaahay dagaal dhulka ah iyo cirka taasoo ay ka taageerayaan saaxiibada caalamiga ee taageerada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka cirka Soomaaliyeed oo iyaguna bilaabay howlgalada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab oo duqeymo ka fulinay qaybo badan oo ka mid ah goobaha ay ka socdaan howlgalada iyo dagaalka tooska lagu jiro ururka Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya hadda waxay wadaa abaabuladii ugu dambeeyay waxaana laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa dagaal ee abaabulka ka dhanka ururka Al-Shabaab degmada Cadale oo habeenkii labaad halkaas uu ku sugan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Xasan ayaa ku sugan Cadale wuxuuna kulamo la qaadanayaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ciidamada loo yaqaan macaawisleyda odayaal dhaqan xildhibaano siyaasiyiin iyo bulsho kala duwan oo madaxweyne Xasan ka daba tagay isla markaana Cadale kula biiray taasoo hadda muujinaysa ididiilo wanaagsan oo ah in dagaalka si weyn loogu jihaystay oo u muuqato in dowladdu ay qaadayso tilaabo iyadoo helaysa taageerada bulshada gaar ahaan gobolka Shabeelle Dhexe oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo muddooyinkii la soo dhaafay si weyn isha loogu hayay markay timaado ka gaabinta dagaalka Shabeelle Dhexe oo meelaha qaar siyaasiyiinta xildhibaanada odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybada kala duwan si uu loogu goday farta ah in dagaalka aysan garab weyn ku siin dowladda Soomaaliya. hadda waxaa muuqata in dagaalka loo jihaystay oo odayaasha dhaqanka hogaaminayay Maxamuud Alwagaas iyo xubno kale hadda ku sugan yihiin degmada Cadale iyagoo la jooga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. sheekooyinka la xiriira dagaalada duqeymaha iyo howlgalada ka soo dhahay qaybo badan oo ka mid ah goboladana waxaad ku wadaagi doonaa dhacdo ka soo korta haddii alla idmo.